بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel walbo aad naga daawanaysaan habeen wanaagsan maalin wanaagsan. waxaan maleynaa hadal badan inuu faa'iido keenaynin barnaamijkan ku soconaa sheer gareeya. xalay ilaa maanta baraha bulshada dagaal xoogana ka jiray oo lees dhex qaadayo hadallo maxaa la yiraahdaa dad ay yiraahdeen oo mas'uuliyiin ah. waxaan rabaa marka inta aan kari karo inaan faahfaahin ka bixiyo aragtideeda sidee tahay. dulmiga gooni waay, qofka inuu qof dulmiyo rabo gooni waay, laakiin hadalka dhihitaankiisa Soomaaliga qof kastaba siduu u yaqaanaa. aan u guda galna marka guushi gobolka Banaadir kadib maxaa dhacay. madaxweynaha Soomaaliya hadlay, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir naga hadashay. madaxweynaha Farmaajo wuxuu yiri waa ku mahadsan yihiin Galmudug kaalinta labaad sida nadaafadda leh. haddii xumaan in laga dhigo la rabo, wasaqlayaal ma ahayn dadka Galmudug degan inay ka doodaan ay ahayd taas. miskiina miska la fuulo hadday tahay sheekada. horta Basma Caamir ma ahan wasiir, ani ma aqaano shakhsiyan, weligeena lama kulmin lamana hadlin, laakiin cadaaladda waxa uu ilaahayna faray waay sida aan wax u aragnina oo xukmino. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri fa idaa xakamtum bayna annaasi faxkumu bilcadli. inaa qof qanciyo marka meesha uma joogo. isbartiibada waxa loo tagani baratan iyo dagaalan kubad lagu dagaalamaayo oo gobolka Banaadir iyo gobolka Mudug ay saa rabtid u qaado dhaliyo wixii ah gooni waay. waxaan rabaa maanta marka inaan hadalka kala farsiro kala dhigdhigo qof kastana budnaantiisa aan siiyo. dad badan oo walaalo aan nahay oo ehel aan nahay ka gubteen, xitaa wasiirro iyo mas'uuliyiin ku jiraan. waxaan rabaa marka hadalka inaan bayaaniyo qof kastana kursigiisa aan ku fariisiyo. Basma Caamir Galmudug kama imaanin gobolka Banaadir ee matashay, waana xubin mas'uul ka ah gobolka Banaadir. gudoomiye ku-xigeen ay ka tahay, ma ahan wasiir ama xildhibaan dowladda federaalka ah. waxay matashaa gobolka Banaadir, waxay u hadashay gobolka Banaadir xaqeena u leedahay. dadka walaalahey Mudug ka yimid soo haray. waxaan rabaa wax yar oo wax ku fahmaysin inaan idiin sheego. nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiyo fadhiyaan wuxuu yiri kullu ummati yadkhuluuna aljanna illa man abaa. ummadeydo dhan jannaday galayaan illa man abaa, ninka diida ma ahane. xadiiska haddaan ka soo qaata ka wara kullu ummati yadkhuluuna aljanna oo qamra aan cabo, qamaar aan dhiilo, wax aan kufsado, wax aan dilo, janno maan sugaa inaan galo maya. laakiin waxa daba socda xadiiska inaan fiiriyo waay. asxaabtii ay weydiiyeen waxay yiraahdeen man abaa qaala yaa rasuulallah. qaala waxay yiraahdeen man abaa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man adaacanii dakhala aljanna waman casaanii waa dhammaatabo. abaa qofkii caasiyana wuu diiday. muhiimadda marka qof kasta oo gobolkaas ka soo jeedo, macnaha asiga ka soo jeedo ama adoogiis ka soo jeedo, macnaha aan dhahno cumar wuxuu ku dhashay gobolka Banaadir laakiin aabihiis Galmudug uu ka imaaday. cumar wuxuu doortay inuu gobolkiisa taageero. reer Banaadir waay, cid ka ma leh. laakiin ninka dadka iska soocay oo ma aragtay calan intuu soo qaatay gobol inuu taageero ugu talagalay, haddii laga guuleysto guuldarrada hadalka daba socdana ha u dul qaato. social media ayagaa horteen soo fariistay, ayagaa sheegeen kobkaan inay intay qaadaan Mudug geynayaan. wiilasha Mudugay ku noqonayaan, Mudugay ka imaadeen. tartanka waxay ku matalayeen Hurwaa iyo Hilwaa, kuma matalayeen degmooyinka gobolka Banaadir ma ahayn. goboladay ahaayeen meeshay ka imaadeen cadaado waaye, ha ku noqdaana ceeb ma ahan. wiilasha cadaaday ku noqonayaan ceeb ma ahan, because maamaadi waxay dhahaysay kulli shay yarjic ilaa asliha. qof kasta meeshuu ka yimid uu ku noqonaa. ani wadankan aan ku noolahay wadankayga ma ahan, beritoole boondheera isugaysa inaan ku noqdo iyo magaalada Muqdisho. luuqadda saasaa loo fasiraa marka. laakiin haddii ay tahay waa nala ka raayay Basma waxay u hadashay, Basma inay hadasho xaqay u leedahay, because haddaa raaysaan ma aamusi lahaynin. warka marka sabuulka markaan finjilo oo aan sida Soomaalida wax u fahanto aan u fasiro, walaalaheen habar gidir cid kasta oo aaminsan gobolka Banaadir inay leedahay
cid kale ma lahan cidii iska saarto oo meel gooni isgeysane meeshii ay isgeysay in lagu magacaabo ama lagu tilmaamo yeediidina dulqaadkeeda ha yeelato bas ma caamir ma dhihin habar gidir cadaadey ku noqonaysaa ee waxay dhahday ciyaartooyda galmudug ka yimaadeen turkiga ma loo wadaa cadaadey ku noqonaysaa arrinta dal aan dalkaaga ahayn dareen ku joog waay Soomaalida oo dhan waa ka saysaa fasir uma baahno maxaa yeelay Soomaaliya markaa ka tagtid dal shisheeya tagaysa dareen ku joog waaye micnaheeda ay ula jeeday wiilasha reer Muqdisho wadan islaameed ma tagayaan gobolka Banaadir ku damaashadayaan kan mudug ka imaadan inuu ku damaashado gobolka Banaadir cid u diidi karto ma lahan laakiin markuu asiga iska dhaadhiciyay inuu mudug taageero oo mudug ka soo jeedo hadalka mudug ahaan u soo gaaray dulqaadkiisa ha yeesho meesha waa xifaaltan meesha waa baratan meesha waa sports xabad ma la gamoohayo ani daraad leefa soo galay maya isla shalay ahayd inta ma aragtay basma ay hadlin mida wuxuu yiri reer galmudug waa la dhuuqay u kaadiya irnaa hadalkan dhuux xumaan uu keenay dadkan Soomaaliya qaarkiis ma fahmayaan aan u fasiray waa u fasiray dhuuqoodkii ninka naag is dhuuqayeen ma ahan waxa laga wadaa yiri dhuuqo oo ciyaal xamar u gaar ah horta Soomaaliya in turjubaan loo raadiyaa qalad ah baashal iyo banooni in ma aragtay waji kale inta loo yeelaa qalad ah adoo Muqdisho ku dhashay hadaad taageerta galmudug u noqonaysa because belada ina galmudug geysid waaye waxa waaye in saaxiibka soo garaacay hal iyo dulqaato waxa waaye laba eray xalaal inaan dhahayo دقيقة بص حافظها جوغانو ها مركز سو بحث لي صوع اوكي ها كان لا يجي صوع لفا كجرا وسلامة ها ويالا هاي رالي نقطة عن أصور نقولنا مركز sheekada meesha u soo fariisan Soomaalida aad u hadal badan tahay dad hadalka jecel iyo xumaanta inay faafiyaan jecel waayo masaakiinta cabsi oo la cabsi galiyay waxa lagu qasbay raali gelin inay bixiso maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka madaxweyne ka ah wuxuu yiri kaalinta labaad ee galmudug galeen sida nadaafadda leh maxaa ugu qabsan weyseen oo xalay oo dhan social media ugu qayli weyseen dadka mudug ka soo jeedaan la hadla oo shalay oo dhan gabadhaas masaakiinta caynay xalay oo dhan ay ka jiifan weysay maxamed Cabdullaahi Farmaajo nadaafad darro muu idinku ogaa galmudug waa jecelahay dadkayga ka soo jeedaan deegaankayga waaye saamiyaan ku leeyahay xumaan uma qoro laakiin xaq laga ma tagaayo kalmadda xaq ma laga tagaaye maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaa u qabsan weysay nadaafad darro muu idinku ogaa markuu dhahay sida nadiif kale oo nadaafadda leh واي أو قبسويسين مركا دهيسين عدادة وعيارتويدة والله وبالله وطلعي ماشي كيميدين وأنا قنايان هبال وايتاس ولا أديها وحكب بدلي كرين وأنا أديها وحكب بدلي كرين لكن مساكين تإلا قبصدو محمد عبد الله فرماجة كدوي وسيردي إيدتك قيلين هاي ما يقبصدان أدي ما أفسيريسيد مركو حماد إيسا مدحوينها وحوكوذي نظافة عيار وناك أيضا وحي كودي ويلش ماشي كسو صفتين ونقنايان تاسانا حقي أيضا حق ودو قبدا حق ودو وأهو ويلش ماشي كي مدين ونقنايان ويلش ماشي كي مدين ونقنايان بكوس ويلش هرواي يترتنك كمسو قليني وحي كي مدين قبل اللي يراهدو مذك أما مامل قبلات اللي يراهدو قل مذك يوسفنايان بدلان مركي العليناي أو دياردي إنه كنا قد بول دهاي حق إهد لكن رأي على النقد حق ما أهمية رأي كوفر قلبت حق إهد رأي هالشبه لحق إهد لكن حق ما أهد ما هدي لغير رأي حمر بحكي قبنا يعني إيشه ويلاش حمر ميدقينهن كوبك انتي وي مادن هرت تاساربت إسويدين ويلاش ورديقلي إيسيناي كما صوبحين كوك إماذا ورديقلي إيسيناي أو صوبسك اللوغة ديجي أو عيارت إني حوجيان لوغو تلقالي عادي واي ريال مدريد محلي هذا كوبك أدونك يا خالد
kii ka horeeyaa qaaday intuu ku noqdo koobka wiilashii laga badiyeyna intay aadeen nin kasta afarta lugta ee ma aragtay bumta Soomaalida ee u taqaana ama ma aragtay knock outka qofkii laga badiyay boorsadiisoo qaadana meeshuu ka imaado cadaaday aadayaan wiilasha hadday guuleystaan cadaaday aadi lahaayeen laakiin markay guuleyso waayaan buuq iyo qaylo iyo dagaalan maba soo gali kartaba waxaan hadal waaye xabad ma ahan la isma caynin la isma ijaafeynin inaa maaragtay hadalkii wax weyn aa ka dhigtaan ani qalad weynaan u arkaa runta weligood looma sheegin dadkaanayti waa loo sacabtumaa beena loogu sacabtumaa Soomaali markay runta isku sheegto wax badana hagaagayo aniga walaaltinimo iyo dhaliyo kuuma diidani deegaanna kuuma diidin laakiin wiilka banooniga soo aaday ee mudug ka yimid ee magaalada Muqdisho imaaday intuu u noqona intuu aada haduu koobka qaada xamar muu jooga macnaa meeshuu ku dabaaldegay wardhigley iyo Siinay miya intuu ku dabaaldegay Saybiana mase suuqa xoolaha qorqora loo geena koobka horena waa u sheegay koobka inaan qorqor loo geenaynin taada kaleentole horta waxaa la rabaa inaan fahanno kaftan iyo kululeysi iyo dhacsi wuxuu yahay hooyada lama caynin aabaha lama caynin laguma ijaafeynin wiilkan waa noqonayaa la yiri haddaad diideen ma noqonayo galmudug anaga oo dhanaa jecel galmudug annaga oo dhanaa jecel nin diidi kara ma lahan dadkeena degan deegaankeena waay laakiin hadalkan weyn maxamed cabdullaahi farmaajo mudnaa in lagu qabsado nadaafad daradooda ku tilmaamay because sida nadaafadda leh oo ku badiseen macnaheedu noo fasira bal waxaan baashaab waay xumaan iyo ma aragtay isjijiid ma jiro meeshaan banooni waay walaalkii ila dhashay duu banooni iga raayo oo xalwo iga cuno geedka lagu baashaal maalinta ku xigay ma iimaan jirin waa la ikululeysana dadka magaalada Muqdisho degan la hadla oo yaqaan arintaas wax problem ma laha in la iskululeysto mudugne yani dadkoo dhan ka soo jeedaan nin aan saami siyaasad ahaan 4.5 ka mudug kursi ku lahayn ma jiro oo aan laga soo dooranaynin oo aan tagaynin oo aan dadkiisa ka soo jeedin oo aan xildhibaano iyo wasiiro ku lahayn ma runtii isku sheegna marka ciyaartooyda cadaaday aadayaan ninkii diidi lahaa iyo ninkii yeeli lahaa asay u taalaa habar gidir ma ahano gobolka Banaadir cid kale mala waa joogaysaa habar gidir gobolka Banaadir cid kale mala waa joogaysaa waa u dhasheen waa ka dhasheen deegaankoodana waay intaas waa inta isla fahmi la'anahay intaas waa inta isla fahmi la'an ani in la idin kululeysto maxay idin la tahay macnaha hadaa badin lahaydeen inaan noo salaaxi lahaydeen madaxa oo aad dhihi lahaydeen dadkan walaalaheen waa gobolka Banaadir waaye dad aan isleenahay waaye mushaakil ma leh waana xifaaltami lahaydeen waana dagaalami lahaydeen waana baashaali lahaydeen social media waana bursa lahaydeen xalay aniga si fiican aan u jiifto horta wax kalena ma ahane koobkaasaytii inuusan mudug aadin oo gobolka Banaadir uu ku heray because nin weyn oo hadal ka dhacayaan ahay horaan u hadlay inuusan koobka meesha uu yaal laga qaadaynin koobka meesha uu yaalo inaan laga qaadaynin horaan uga hadlay bas ma caamir uligay ma arkin ma aqaano dadka heesta iyo ayada dadka heesta ehelkeyga ah ayagaan ixigaan laakiin waxa ay ku hadashay war sax u ahaa inay raali gelin ka bixisan qalad ahayd baagto cadaado dadka habar gidir oo gobolka Banaadir degan lama dhihin ciyaartooyda cadaado ka yimideen oo koob inay xamar ka qaadaan u yimideen ayada la celiyay meeqa Sacuudi laga soo tarxiilay baagto Muqdisho la meeqa Yurub laga tarxiilay baagto Muqdisho la dhahay meeqa Boosaaso iyo bar inta laga soo tarxiilay baagto Koonfur Galbeed la dhahay war baagto cadaado waa sax banooniga markii laga badiyay wiilasha ma hay ka yimideen ay aadayaan intaas waa muhiimada wadamaatay xamar wiilasha lagama xigo deegaankooda waaye awooday ku leeyihiin xoogay ku leeyihiin deegaanay ku leeyihiin intaas oo dhan la isku diidan laakiin markay guul dareystaan meeshay koobka geyn lahaayeen biladii bolokaatiga ahayd oo la siiyay inay geeyaan xaq waaye biladii bolokaatiga ahayd
oo la siiyey inay meesha geeyaan wiilasha xaq waaye oo deegaankii ay tagaan oo lagu soo dhaweeyo oo loo wanqalo oo guusha ay keeneen oo kaalinta labaad ah deegaankii ay ka imaadeen iyo dadkay ku matalayeen loogu dabaaldego intaas waaye baagto cadaada marka sax waaye wayna ku saxneed basma inay tiraahdo wiilasha meeshaas ay ka soo duuleen xamar ay ku soo duuleen koob inay ka qaadaan oo duulaankooda ahaa bilada bulukaatiga inay meesha ku celiyaan waaye koobka haddii galmudug lagu dhihi lahay oo wiilasha xamar laga soo badin lahaa baagto muqdisho la dhihi lahaa ayagoo boor lahayna soo bixi lahayn muqdisho imaan lahayn waa dhamaatay muhiimadda marka baashaal waaye iyo banooni walaalihii marka reer mudug maxamed cabdullaahi farmaajo qalad idinka galay ee qabsada hadalka uu yiri madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo kaalinta labaad idinkuugu hambaliyay sida nadaafada leh ku qabsada nadaafad darro idinku ogaa soo nadaafad uga hadla horta guri la tirtiraayo dhul xaqaay miya banooni iyo nadaafad maxaa iska galay waay hadalkaas muxuu ku keenay waxa weydiin weyseen basmo waa ku shamuunteene maxamed cabdullaahi farmaajo loo weydiin waayo wuxuu ka wada nadaafad guri ma la tirtiraayo banooni yaa la dheelay na weydiisin waayo weli gabadha iyadoo raali gelin bixisay laga daba qaylina ama wasiiro dagaal weyn lagu soo qaaday waxaas oo dhan ma mudno goorme reer galmudug ragooda ay gaareen inay gabar u jawaabaan mudug dad xishood badan oo dumarka qiimeeya lagu ogaayo waay nimanka waaweyn ay gabadha ugu jawaabayaan ay dagaalka u siinayaan ay ugu qaylinayaan maxamed cabdullaahi farmaajo lagu qayliyo oo la yiraahdo madaxweyne banooni iyo nadaafad maxaa iska galay waxa laga hadlayaa caadifad ma ahan waxa laga hadlayaa isir naceeb iyo qof naceeb ma ahan waxa laga hadlayaa qof gobol uu matal basmo intay ka imaatay aan dhahnabo yemanay ka imaatay adiga saa dhahday aan ku yeelo yemanay ka imaatay calanka ay hogsaneed gobolka banaadir waaye meesha ay mas'uulka ka tahayna gobolka banaadir waaye sidani ma awoodo Real Madrid inuu yiraahdo maxaa la yiraahdaa ii sheeg in ma taageeray waxaan taageeraa Barcelona bariiskiisa ku xiran inuu Real taageero basmana gobolka banaadir ee ka shaqeysa ee shaqaale ka tahay cali yare oo galmudug in calankeedu hogsan oo gobolka banaadir gudoomiye ku xigeen ka oo mushaarka uu qaato gobolka banaadir uu ka qaato kooxdii uu siyaasad ahaan matalay cali mas'uul waaye mas'uul oo xubin ka gobolka banaadir waaye kuma qabsanin anaga maxaa calanku qaadata ma dhihin waxaan dhahnaa rag waaye inuu dadkiisa taageerana uu ku saxan yahay basmana way ku saxan tahay gobolka banaadir inay taageerto warkay sheegtana run uu ahaa ninkii ka xumaadayne da aqligiisaasi inuu ka xumaado umada aqligooda lama nihid iyo wixii ayaga ay aaminsan yihiin waxa ku soo haray beesha sharafta leh oo karaamada leh oo habar gidir la yiraahdo walaalaheen xamar ayaga iskala cid ka xigta ma lahan laakiin waxa la haystay habar gidir ma ahane ciyaartooy galmudug ka imaatay oo gobolka mudug matalaysay oo xamar ku dheelaysay waxa la haystay maxay sameynayaan ii sheeg ciyaarihii markay dhamaadeen oo laga badiyay maxay qabanayaan bal u fiirso meeqa Soomaaliya baxdo oo sanad kasta xaj tagto xajka Ilaahay markuu soo dhamaado goobtooda Soomaaliya way Muqdisho u soo laabanayaan iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo meelihii marka hore ay ka baxeen xajka ka aadeen qof kasta marka meesha uu marka hore ka tagay destination kaas uu ku soo laabanaa marka dambe uu soo noqonayaan maxay ku gubeen marka gooto cadaada hadii lagu yiraahdo aniga anoo cadaada ka imaan gooto cadaada hadii la yiraahdo waa ku faana waa ku faraxsanahay because dhulkeygii way okay aan leeyahay cadaada meel sharaf leh oo dad karaamo leh ay degan yihiin way I hope maalin nolosheeda kamid ah inaan inta tago dhayla aan ka soo cuno oo aan ku soo baashaalo oo waqti aan ku soo qaato wax problem ma laha dadkeygiyo af Soomaaliga margayo kale intoola way meeshii loo jiidoona u jiidsama mushkilad ma lahan marka meeshii asal ahaan awowaheen uu ka soo jeeday ama adeerkeen uu ka soo jeeday ama abtigeen uu ka soo jeeday ama aabaheen uu ka soo jeeday ama anaga aan ka soo jeednay markii la yiraahdo aniga reerkeyga baadiye fogay degaan oo xamar maxaa la yiraahdaa 200 kilomitir ugu yaraan u jirto maxaa Saciid iyo masaajid cali guduud markii la yiraahdo ku laabo iyo ceel wargaadhi iyo qaahir meesha la yiraahdo iyo maaragtay quraacda xeelada dile
ma dhahayo maxaa la yiraahdaa ku laaba maxaa la ii yiri waa ku faanaya inaan ku laabtana waa ku faraxsanahay inkastoo nolosheeda aan tegin inta aan noolahay. ha idin gubin marka ciyaartooy koob soo doontay oo gobolada markay marka ciyaalka dee xamar ka imaadeen way ay u matalayeen galmudug. su'aal isweydiin rabto waaye nimanka xamar joogay oo aanan bixaynin maxay u matalayeen galmudug? macnaha ciyaartooy wax banooni haraati kara dhan mudug ma laga hela miya? ana hadda dii la yiraahdo en go to the maxaa la yiraahdaa ii sheeg en baadiyaha oogaa ka imaaday waa tagaa yaa diidi karo. laakiin basmo waxa ay sheegtay way ku saxneed 100% inay raali gelin ka bixisana qalad ay ahayd. wallaahi uu billahi uu talaa inay raali ahaada hadal qalad uu ahaa hadalkan dhaha ay dhahdo cabsi ay cabsanaysa ahayd. laakiin cadaalad markii la yiraahdo hadalka ay ku hadashay sax waay. basmo qabiil habar gidir la yiraahdo may u gaftay uma gafin. qabiil habar gidir la yiraahdo may wax ka sheegtay kama sheegin. basmo waxay ka hadashay ciyaartooy gobolka mudug matalay oo xamar yimid inay koob ka qaataan oo laga badiyay waa noqonayaan meesha ka imaadaan ay u noqonayaan. intaas waa intaan ka hadlayno. buuq iyo qaylo iyo mashaakil maba imaan kariyabo. marka inta nala socoto waxaa idin leeyahay sanad wanaagsan insha Allah. sanadkan 2021 waxaa rajeynaa mid barwaaqo iyo maaragtay bashbash ummadda Soomaaliyeed ay ku galaan inuu Ilaahay ka dhigo. waxaa rajeynaa Ilaahay qulubteena maaragtay inuu isku soo hadeeyo oo aan ogaano inaan ishursannahay oo dad kala tigi kara ama kala jijibi kara aan ahayn. gobolka Banaadir cid kasto oo Soomaaliyeed aad degan waa la wada degan yahay. nin kastana saamiyuu ku leeyahay. nin laga bursa kara ama loo diidi kara ma jirto. dagaal iyo dhibaatana meesha maba taalaba. banooni iyo baashaal ayaa horta baashaalka aan ogolaano in la isku raaxeysto oo lafaha la iska garaaco in la kaftamo aan ogolaano. guushane hadday galmudug tagto iyo haddii ay Banaadir tagtabo isla wiilasheeni leh waaye waa dhamaatay. wiilasha isla wiilasheeni waaye because koobka meel dheer ma aadin. qof Soomaaliyeed qaatay hadduu galmudug tago iyo hadduu Hirshabeelle tago Jubbaland uu hore u tagay waa u hambalyeynay Kismaayaana ku celinay wax problem ma laha. waa dhamaatabo haddii gabadha ay raali gelin bixinayaan xataa wax problem ma laha. dad sharaf iyo karaamo leh waaye oo kaftanka ayagu ka soo askuma dadka mudug degan. kaftanka Soomaaliya mudug uu ka yimid in la iscaayo oo gabay iyo maaragtay xifaaltan mudug idinkoo idinkaga imaada dhankiinoo ka imaada dadka masaakiinta oo xamar degan wixii idinka ay idinka maqleen oo na barteen leen ku dhaqanaa anaga. xanaaqina marka ogolaada guuldarada hadalka daba socdana ogolaada guuldarada. hala ogolaado in la idinka guuleystay oo banooni ay tahay waxaan. qofka markuu xamaasad qaadane wax ka badan uu dhaha dada baraha bulshada maalin kasto idinku caay oo maalin kasto aan dagaalan kula jirna oo aan dhahnaa isbaaradii ba loo xiisin markay isbaarada soo sheegaan tuuga tihiin markay yiraahdeen tuuga ma nihiin idinka tuugaan dhahnaa waa dhamaatabo. ina qaylisiin marka ma ahan wax adiga ina leedahay ogtahay ina u dagaalantidaaba qalad ah. macnaha waxay soo xasuusinayseen in 2019 waxyaabaha ugu yaabka badnaa mar shirka wasiirada la isku qabsaday hadduu ifiirsanayaan aadan u salaama wasiir aadan wuxuu yiri ani xildhibaan ma ihiyo aniga xildhibaan ma ihiyo. Cumar Finishna wuxuu yiri aniga hawiye ma ihiyo. hadda idinku cataagintiin anaga reer Banaadir ma ihino waa tihiin in idin diidan male ina weydiisiina ba qalad ah ina reer Banaadir tihiin in kale tool shaki ma ku jiro walaalahay marka waa mahadsantihiin wax kale tool uma soo gelin ina isfahansiino si wax u socdaan. dhalinyarada gobolka Banaadir oo dadaalay ina mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad u hambaliyeeyo walaalahay mudug ama
reer Cadaado ama reer Galmudug meel fiicana soo gaarteen wax weyn oo dadka ay qaban karina qabateen shalay toolana leefkayga waa ku dhahay maantana waa ku celina ciyalka cuqdadaysan iyo kuwa jiran iyo ani ma rabin inaan u jawaabo waxaan u jawaabaa dadka miisaanka iyo kartida leh oo fahansan waxa aan ka hadlayo wax weyna qabateen Galmudug maanta moos iyo babaay hadii ay ka baxayaan warankii cirbad ka tolateen kubadda ka gaarteen kaalinta labaad oo finaal imaateen oo banaadir rigoore ay idinkaga badiyeen guul weyna gaarteen halkaas ka wada hoggaan u naqda ummadda Soomaaliyeed kaftanka ogolaada haddii wax in la idin yiraahdo ka dagaalamaysiin hadalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu idin yiri kaasa gaf ahaa oo Galmudug kaalinta labaad ugu hambaliyay sida nadaafada leh oo kaalinta labaad ay u galeen oo nadiif ka ahayd taasa ka hadal mudan because wasaqlayaal ma ahaynina marka horeba isdajiye marka basmo qof hadal yiri way oo bini aadan hadii ay qaldanta xataa bini aadanka waa qaldama laakiin ana Cabdi Maxamuud kulmiye ereygaas hadaan soo qori lahaa ama afkayga uu ka soo bixi lahaa sida ay raali gelinta in uga bixisay raali gelin ma uga bixin lahayn macnaheedan in dadka ka awood badanahay ka aqli badanahay ka karti badanahay oo yani in libaxsan ka taabtay aan ahay ma ahane inuusan gaf ahayn waay wiilasha koobay soo doonteen hadii ay guuleysan lahaayeen koobka Cadaadi geyn lahaayeen hadii laga badiyayna Cadaadi ku laabanayaan ay koobka biladii oo maaragtay macdanka ahayd badalkiisa blokaatiga aan dhahay way loo waraale ahaa meeshaas ay geynayaan intaas waa inta la isku haysto ma geynayaan hadaa dhehaysidna xamar hanoo joogaano kulay wiilasha badiire xamar ay ahaayeen biladaheena oo blokaatiga iyo koobkeena isku darsano gobolka Banaadirna aan ku sharaxano waa dhamaatabo intaas oo warka ku egyahay marka waa ku mahadsantiin inta ay daawateen waqtigiina qaaliga waa idinkaga mahad celina waxaan ka cudur daarana waxyaabaha aniga ana marna iloobin waxa kamid ah marka barnaamij qabta ama aan live soo galo oo aan dhameeyo mar walba waxaan ka cudur daartaa hadii inta aan barnaamijka ku jiro qataf uu iga dhacay ama qof ama shakhsi ama qabiil Soomaaliyeed uu u arko ina asiga u gafay ama aan duulaan ku ahay idin duulaan kuma ihi waxaan ka hadlayay wixii dhacay waxaan ka hadlayay hadalkii gudoomiye basme ee tiri waxaan ka hadlayay sidii ay wax u jiraan idna looga heebaysan maayo waxa saxda ee qofku doona ha ahaadee wada dhalashada deegaan wada lahaanshada waa halkeedii laakiin xifaaltanka banooniga cid boon looga dhimaayo ma lahane wiilasha Cadaadaha ku laabtaan ee bilada ma aragta blokaatiga oo la siiyay kaalinta labaad ha geeyaan halkaasna ku dabaaldegaan xamar Sooma ahan deegaankooda way cid u diidi karta ma lahan laakiin matalaadii ku yimaadeen reer Galmudug ay matalayeen Cadaadayna ku laabanayaan xamar haday rabaan waa joogayaan taas ayay u taala laakiin kullu shay yarjic ila asliha wiilasha Boosaaso ka yimid reer Garowe meeshay ku laabteen oo wiilasha Jowhar ka yimid ay ku laabteen oo wiilasha Baydhabo ka yimid ay ku laabteen oo wiilasha Kismaayo ka yimid ay ku laabteen wiilasha Galmudug ka yimid Cadaadi ku laabanayaan muhiimadda dhan intaas way marka la soo kookooso oo la isku keeno waa intaasay tii Cadaadi ku laabanayaan wiilasha Cadaadaha tagaan hadii macnaha ay u arkeen dadka walaalahayga inay basmo habar gidir haysatayna habar gidir xamar cid kala ma laha deegaankooda waaye mataladay ku leeyihiin awooday ku leeyihiin xoogay ku leeyihiin degmooyin ay ku leeyihiin dad iyo duunyay ku leeyihiin ganacsi iyo guriyo dhaadheer ay ku leeyihiin waa joogayaan waxa laga hadlayaa de habar gidir tahay habar gidir deegaanka cid kale ma laha hadii ciyaartooyda Galmudug laga hadlaayana meeshay ka imaadeen ku laabanayaan intaas waay hadda isla fahanay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadda isla fahmi weynane wax idin yaalo waay ninka si kale intuu arkay aragtidiisa xuru u yahay aniga lama lihi aragtidiisa qofka aragtidiisa aniga lama lihi laakiin waxa aan falanqeynayna ama aan ka hadlayno dhacday iyo sida loogu aragti kala duwan yahay waay aniga aragtideyda idin la wadaagay dadka gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho 99% aragtida ay qabaan oo saxda ah
way dhici kartaa dad walaalihii iyo saaxiibo aan nahay oo aad aan iskugu fiican nahay oo macnaha aad ii taageero oo aad ii support gareeyo oo ma aragtay meel weyn ii taagan inay hadalkayga dhibsadaan way dhici kartaa inay ka xumaadaan way dhici kartaa inay si kaleentoola ii arkaan way dhici kartaa inay ila fahmaan laakiin waxaan rajeynaa wax walba positive in laga qaato in oo aan loo fikirin dadka qaar sida u fikirayaan maxaa laga hadlay banooniya laga hadlay oo kaliya qabiil lagama hadlin qabiilka meeshaasaan dhiganaynaa banooni wiilal koob soo aadaya laga hadlay iyo wiilal guuleystay wiilka guuleystay gobolkuu matalayo dhex joogiyaa banaadir uu joogaa kan laga guuleystay cadaaduu ka imaaday oo ku laabanayaa meeshuu guusha u celin lahaa basmo wixii idinka dhexeeyo oo agooni ee aniga shaqo kuma lihi laakiin hadalkii shalay hadduu ahaa soomaalida waxay tiraahdaa sac markuu caano diiri rabo maqaarkuu meel duleela ka raadiyaa guusha gobolka banaadir aan lagu daboolin dabaaldega 3 maalin waaye noo dulqaat 3 maalin intaa ka dabaaldegayna noo dulqaat kabacdi waa iska iloobay soomaalida meeqaan soo iloonay oo horay noogu soo dhacday sanadka dhamaaday waxyaabihii nagu dhacay 2018 dadka quruxda badnaa oo ma aragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naga beeray oo dhintay waa iloona dhamaantood wax ka hadlay ma aragtay 3 maalin kadib waxaan oo dhan waa la iloobayo 3 maalin hala dulqaato waana mahadsantihiin xumaan ayaa loo arkin in gabadha hadalkeeda waa sax waa sax waa sax waa sax wiilasha hadday reer banaadir ahaayeen hanoo joogaan gobolka banaadir biladaha oo blokaatiga ee oo la siiyey iyo koobka aan isku darsano gobolka banaadir aan ku sharaxano hadday galmudug ka imaadeen inay guuleystaan oo meeshaasaytii ay ku noqdaan idinkaaba noo sheegteen bay reer galmudug markaa ciyaartooyda xafladda u dhigteen waxaa sheegteen koobkan galmudug in la geynayo oo cadaada laga dejinayo dad badanaa sheegay oo magac Soomaaliya ku leh taas ma ahano in goobka cadaada laga dejinayo waa dhamaatay wiilashana cadaadii ka deganayeen biladii hadda geenayeen meeshaan lagu soo dhaweynaa waa lagu soo wanqala xamar cid u diidan male waa joogi karaan xuray u yihiin dan iyo duunyo dad ka soo tagay meeshooday ku laabanayaan hadday baashaal iyo dalxiis u imaadeen aniga maalintii oo ay isku soo aadeen ee koonfur galbeed ka raayeenaan sheegay waxaan dhahay waa ku mahadsan yihiin wiilasha reer Baydhabo dalxiiska ee ku joogeen boostiyaasheedu waxaan jeclaan lahaa inaad dib ugu laabatiin gobolka banaadir lafta gareen ha loo celiyo reer koonfur galbeed dagaal ima siinin Cabdicasiis Maxamuud Kulmi inkastoo aan Cabdicasiis Maxamuud Kulmi qof iska caadi oo shibila aan ahay oo aan magac lahayn oo aan dawladda xil ka haynin basmana dawladda xilka ma hayso gobolka banaadir ay xil ka haysaa waxa laga hadlayo marka kana abgaal kana shiiqaal kana hawr gidir kana waceesle kana wacbuudan kana reer mantaan kana reer jalaf kana reer qalaf kana ma arkino maxaa la yiraahdaa ii sheeg maxamed camal ma ahane waxa laga hadlaa laba gobol oo iska hor imaatay oo banooni dheelaayeen oo positive isku ahaayeen oo la yiraahdo galmudug iyo banaadir waa dhamaatabo hadduu banaadir raayo waa la xifaaltama ogolaada salaamu calaykum hadal badan ani kama gaaro koode uma soo gelin aniga dad inaan u gafo laakiin waxaan u soo galay inaan runta isku sheegno faqay walaalkiisa runta u sheego runta aan isku sheegno gabadha ma qaldamin way ku saxneed raali gelinay dhiibtay qaata haddaad diideen yeelkadeed idinka idin jirtaa salaamu calaykum ninka calfaha lahaayo ceelkaas bari uga baxaya ahani 4 kalmadood oo xalaash eed oo aan dhihi rabe reer galmudug iyo reer banaadir waa dhahay allah isku keena cafiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warle ma wadi karnay wareer raali ahaada warkaaneti yaa uji kaleento loo yeelin waa ku celinaa ugu dambeynaan ku celinaa inaa ogaataana rabaa hadafkeyga haddii laga hadlaayo beesha habar gidir xamar dad iyo duunyo iyo guryo qurxanay ku leedahay waana joogaysaa calaado u laabamayso haddii laga hadlaayo ciyaartooyda galmudug meeshay ka yimideen u laabanayaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh